oday dhaqameedada caaqilada ergooyinka ku hoos qoran murashaxiinta dhigayga kala ah kuraasta u ordaysa dhammaantiin waan idin wada salaamay magacaygu waa Siciid Cabdi Xuseen balse badanka loogu yeedho Siciid Cawke aad baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad isa soo kiin hortaago anigoo codsanaya inaad isiisaan kalsoonidiina inaan mar labaad idinku metelo kursiga aqalka sare ee aan ku fadhiyay 4 sane iyo dheeraadkii u dambeeyay waxbarashadaydii formalka ahayd waxaa 100 jeer ka qiimo badnayd waayo aragnimada iyo khibradda aan ka helay 4 sano hanaanka dawladnimada waxayd 4 sano oo wixii aan bartay ee aan ka bartay dawladnimada ay tahay in laga faa'iideysto 4 sano ee soo socota haddii aad codkiina isiisaan waxaan ku soo shaqaynay xaalado adag oo kala gedisan waxaanan ogahay kala hortabinta shaqooyinka hor yaalla baarlamaanka 11aad ee hadda doorashadiisu socoto haddii aad codkiina isiisaan waxaan ogahay sida loo kala hortabinayo iyo midnaanta ay kala leedahay shaqooyinka hor yaalla baarlamaanka 11aad ee hadda doorashadiisu socoto una taaganahay inaan ka mid noqdo haddii aad kalsoonidiina isiisaan dalkeenna waxaa haysta dhibaatooyin badan oo ay ugu daran yihiin amni xumo isjiidjiidka sharci ee soo laalaabta iyadoo aan mar qudha tallaabo wax ku oola loo qaadayn dhinaca midnimada mudanayaal iyo marwooyinba waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono isuna taagi doono midnimada iyo ka shaqaynta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan aaminsanahay in midnimada iyo wada hadallada lagu sixi karo dastuurkeenna 10 sano qabyada ah ee intiisa qoranna qof walba awoodda siinayso soona celcelinaya isqabqabsi ka yimaada madaxda dhexdeeda mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay haddii la helo dawlad ka shaqaysa midnimo in Soomaali fursad u heli karto in la helo dastuur cusub oo markaa la heshiiyoba la wada qorto meeshaasna ka saara dastuurkan qabyo qoraalka ku jira 10 sano iyo siyaadada walaalayaal waxaan doonayaa in qof walba oo Soomaaliyeed meeshuu doono ha jooge inuu dareemo in gurigiisu yahay halkan Soomaaliya sidaa daraaddeed waa inaynu dhammaanteen ka wada shaqayno ammaanka iyo wax walba oo dalka horumarkiisa wax u taraya haddii aad kalsoonidiina isiisaan anigoo kaashanaya waayo aragnimada yar waxaan xukuumadda imaan doonta kula xisaabtamayaa inay sii wado kana shaqayso wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan 100% ku kalsoonahay in codka mar labaad laygu rido oo aan shaqooyinka qabyada ah iyo shaqooyinka aan ogahay kala hortabintooda iyo mudnaantooda aan sii wado waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba codsanayaa kalsoonidiina iyo inaa codka maalinta ay gaadho isiisaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh